أيه قيبتنا نمت قيبتنا word problems ka وقيب important هو الجبر أركيسان هدي كل word بيسوق لي سهلو حقاسا محي هالكاسا أنتاسا أنت قرر دقالي أنت صهوس ودعي كبعد محي equation مثل شكل محلها جراف جري محي حق الجبر ذا بحلو استعماله إنه لش عادي قال وحلي problems كي مركوينا problems كي برنا marka tartiib baan u bilaabaynaa laba section word problemkaas ku xijinaynaa markaasaan u sii gudbaynaayo hadda waa anagii dhammaynay two step equationska ahaa variables on both sides iyo waa sii wadaynaa laakiin halkan waa loo baahan yahay waaya algebra word problems exampledan ku soconaynaa iyaga ugu fiican waxaad aadka la isu weydiiya waxa weeye translate and solve translate and solve maxaa laga wadaa turjun horta markaas xalli equation kasta ama sentence kasta ee algebra ah lagu siiyey first one maxaa marka waa ingiriiska meesha ku dhigan baa akhrinaynaa suuyaan u qoraynaa saas baa lahaa math saas loogu qoraa marka waxaan leenahay 11 maxaa la yidhi less than 7 11 less than 7 waxaan leenahay less than 7 times a number 7 times a number 7x less than 11 is 24 is directed what equal marka 7 times a number look here fear halkan aan bali ku dhigo 7 times a number of 7x less than 11 kwaka maya 11 less 11 ka waxaa laga soo jarayaa laga yareynayaa 11 kaas waxaa laga soo yareynayaa 7 kan ka soo goynaa marka 7x minus 11 is to waa equal taas 24 xaliskiisu nama dhibayo waxaan samaynaynaa sideeni noo tirtir dhib ma leh waxaan leenahay plus 11 iyo plus 11 waa taqaanaa hawsha hadda ku bari maayo plus 11 and plus 11 so 7x maxay noo noqonaysaa equal 35 maxay noo noqonaysaa 35 that means x muxuu leeyahay marka x wuxuu la ekaanayaa markaasi 5 numberkii la isku diray saasuu noqday haye example kalaan ku aragno the quotient of a number and it minus 3 increases by 12 minus 15 كان by the way غصب أنا أحد يكتسدونه وأحيانا بعد ورطة بلون اسكو قدي quotient وحالي لا اسكو قيمنته هدي اللي اسكو قيبيو اسكو قيمنته بلعبينا اسكو قيمنته أنوري وين يستقل كاس اسكو قيبي number x ليرة هذا iyo minus 3 haddaan isku qaybinee oo lagu daro increased by 15 increased by what increased by 12 hadii 12 lagu daro is wuxuu noqonayaa is means equal 15 oo kaasaan u dhisnay waxaan nidhi the quotient laba waxba la isku qaybiyey halka quotient sameeyay waa qaybka of a numberka waa x kaas and minus 3 وقر increased by 15 by 12 equal 15 runtii waa cajalkan dartiis geedkan wuxuu ku khasbay inaan kusoo celiyo wuxuu dhan sababta Mustafa thank you so much arday baa arkay marka wuxuu igu qabsaday halkan oo ii saxay runtii I say thank you because waxaan sameynay mataqaanaa xisaabtaas inaan ka fiirsan horta dhib minus 2 alif vaar dhinacaan aan 2 alif ku daray marka halkaas day plus 2 alif vaar no that's wrong waa ina minus 2 alif vaar labada dhinac ma soo barin soo maaha marka la khaladku inuu iska dhacay ku tusaysaa taas minus 2 marka wax kale soo baxday marka ardaygu wuxuu dhahay halka macallin waad khala halkaas ka bedel marka waan ka bedelay hadda taasan soo galiyay so minus 2 alif labada dhinac si miisaanka loo ilaaliyo so ka ku go so x waan la yaabo xisaabtii wax kale soo baxday aan filayay mooyo wax kale كما سيفكرنا اسبيد بان كسعودة x minus 3 equal x over minus 3 equal 3 داي x 3 shortcut كاكا كودفو
so x waxay noqonaysaa minus 9 awal wax kale iga soo baxdo yaab laho number kaloo weyn oo yaab sababtoo ah plus 12 bay noqoto halkaas waxay ka noqotay halkaas waxay ka noqotay 27 inta isku daray wax khalad ma waa wax khalad taas khalad oo 27 inay noqoto ma waayahay halka hay istaago kaas example kale waa kan waxa weeye example kale 15 less than the product of minus 2 and a number 15 less marka la yiraahdo waxa la sameeyaa less taa la qoraa 15 ka la yiraahdo waa sugaya 15 baa waxa laga soo reebay laga reebtay the product tiga ah isku dhufashada product waa isku dhufasho product means times the product of minus 2 and a number waa 2x the product of minus 2 and a number waa 2 times x baa qori kartaa waxaa qori kartaa 2x baa qori kartaa that's the product waa isku dhufasho 2x and 15 is and the product was of a number and a number is 3 is to a case you know 100 is to equal 3 haye kabacda la xalinay xalinta xalin kartaa dib malaha plus 15 so maxay noqonaysaa minus 2x equal what equal 18 labadii dhinacba laba iyo laba u qayb minus 2 aljabrada waa taqaanaa daada qoon kala noqo cajilooyinka kala aad waxay noqonaysaa x equal minus 9 bay noqonaysaa waayo labaan u qaybinaan labada dhinac will divide 2 baan u qaybinaan labada dhinac haye mid kale aan ku darno naan fiirino 16 more than twice a number 16 buu ka wen yahay 16 buu muxuu ka wen yahay ninkan odaga ah wuxuu ka wen yahay 16 buu ka dheer yahay 16 more to a plus twice a number day sida carabiga midaan u leeyahay taas u socdaa taas oo fiican 16 ka waxa laga daray dhinac kale oo u rogi kartaa of course laakiin kala goynta saan rabaa inaan u barato way kala goynta badana khaldanta ma rabo inaan khaldanto 16 more than twice a number is minus 12 what's the number marka waxaad samaynaysaa dag minus 16 baa leenahay halka ma malayn karaysa xisaabta loo khaldi karo sida fududada double checking ku qaban marka waxay noqonaysaa 2x equal waxay noqotay minus 28 waayo labadan waa isku darsameen dabadaas waa isku darsamayaan 12 iyo 16 28 bay isku noqonayaan divide by 2 labada dhinacba dheh x muxuu la mid noqonayaa markaas x wuxuu la mid noqonayaa minus 14 waayo labada dhinacba labaan u qaybinaynaa sooma x muxuu la mid noqday minus colorful color badan baan ku qabanay meeshaan good waa loo baahan yahay colorka halkaas ku ekaado the difference markaan waxaan nimid kala goyn baan nimid kala goyn the difference waxaan nimid between 7 times a number horta ka noqo horta the difference baan ka bilaabaynaa sheekada wax kasaan u aragnaan u qoraynaa fiiri algebra problems kooda sidaa u aragtaa loo qoraa the difference waa minus difference of maxay between what between 7 times a number was 7x kan horaan horumarinaynaa and a number 7 times a number and 3 is 32 they yaa horumarinay the difference markaan dhiro minus kaa qorno dhexda ku jira markaan qornay 7 times a number isaga horumaraya 7 times a number kaasa horumaraya and 3 is 32 waka warkasuu iyaa u qoraysaa so marka waxaan qoraynaa balaskii waan qoraynaa insha allah balas waxaan qoraynaa sorry waa wada tirtiray wixii dhan ka noqo 7 times a number so plus 3 iyo maxaan ka dhigaynaa iyo plus 3 saan u solve karayna so 7x waxay la eg tahay 35 meel walba waxa u qaybisaa 7 maxaa soo haraya x wuxuu la ekaanayaa maxay 5 miyaan ahayn waa saas haye waxaan u malaynay inaad wax soo fahmaysa difference quotient product is inaad fahmaysa ereyadii problemska ku dar muxuu leeyahay uploadka
هي قياس 18 less than 4 times a number. 18 less than 4 times a number. Look here. 18 kan waxaan ka dhimaynaa 4 times a number. 18 less. Day ka noqo. 18 less. 18 less maxay tahay? Waa minus 18. Day 18 less. Sideetan waxaan ka jaraynaa 4 times a number. 4x is 6. ardayda aad waxay u khaldaan meeshaan warka si loo leeyahay xoogaa qalooca ku jira. waxay qoraan 4 times and waxay qoraan 18 less than. waxay qoraan 18 minus 4 times a number is 6 bay dhahaan. taasi waa khalad. taas what? It's wrong. So waxay noqonaysaa 80 marka taas waa khalad. waxaa sax ah iska tirtaa. waxaa saxa midaan kore noogu dhigan baa sax. marka waxaa leedahay 18 less than 4 times and 18 less 18 ka yar. So plus 18 waana ku yiri lacagta haysatid 18 bay ka yar tahay. 18 macnaha 18 baa laga jaray bay noqonaysaa 18. So 4x equal 24. x equal wuxuu noqonayaa 6 qabo karigo laba saar. hay ka dheregsantahay ilaa taas markaan ma dheregtay adiga ma ku daya haye soo soco intaana kaa raba 6 more than twice a number is 20. akhriso oo ka shaqay. haye joojiso cajalka. haye waa markaagii aanu aragaane bay dhahaan. haye aragnahe warka ma la sii wadooday aragno ansar. marka waa aragtaa jawaabahan mid walba iyo habka haban baa loo sameeyey. sababtoo ama taqaanaa haddii heer baad gaartay mid kasta qasab maaha stepka hore haddaan kuu sameeyo iyo ansarka step dhexe haddaad garan weydid way isu weydiin kartaa. laakiin there's no reason waxaad u garan weydid. haddaad garan weydid macnaha casharadii kale inaad ku noqotid weeyaan. marka waan ku salaamayaa Dr. Botan oo kula khayr baan ku rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi. cajalooyinka soo socda war problems kasko inequality iyo waxa soo socda kuwii la midka ahaa aljabrada waa ina dhamaystiraa. sheekada waa iska xirmaysa. aljabrada warkeeda waa la soo ogaanaya iyo geometrygaba iyo insha allah iyo statkaba qayb ka mid ah. hadaan israacin karin qayb baanu samaynayaa. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. okay.